barnaamij uu soo jeediyey Ismaaciil Aadan Miicaad oo ku saabsan nolosha qoyska muslimka gaar ahaan nolosha qoyska Soomaaliyeed ayaa kusoo gabagaboobay bisha 26 magaalada Boston in halkan waxaan markaa nagu soo gudbinayaa wixii ka soo baxay natiijadii trainingka iyo sida ay u arkaan dadkii ka qayb galay waxay iga tahay warbixin waxa ka taagan amase barnaamijyada laga wado Boston oo gaar ahaan wado ninka la yidhaaho muxuu ahaa macalinka weyn khabiirka Ismaaciil Aadan Miicaad oo nooga yimi dalka Ingiriiska si wanaagsan loogu soo dhaweeyey wuxuu isku marayaa states fara badan oo United Stateska ka mid marka waa kan barnaamijkii ila daawada inay ka faa'iidaystaan 3 maalmood marka dad badan oo maaragtay aad iyo aad u riyaaqay oo rabay ayaa mar alla markii ay maqleen in uu joogo ayay qof walba wuxuu yiri inaan ogaan lahaa ayaa ii fiicnaan lahayd mu'tamarkiina laakiin waxaan dhahnay maaragtay calaacal ma fiicne marba haddiiba uu joogo ka faa'iidaysta 3 maalmood kale ayaan idinku darnay oo maaragtay barnaamijkaas uu bixinayo insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay oo kale in mar kalena aynu soo celino si ummadda maaragtay uga faa'iidaystaan dad badan oo aragnayna waxay noo sheegeen inay yiraahdeen wax aan 6 sano aan maaragtay ka shaqaynaynay ay wuxuu inooga dhigay si sahal ah in aynu maaragtay u sameyn karno caruurteena waanu naqaanaa maaragtay meeshani ma aha Soomaaliya oo kale ma aha wadan nabi ah taa marka ay dhacdo waxa weeyaan qofku waa inuu helaa way kale oo ilmihii lagu dhaqma marka taa ayaa waxay keentay barnaamijyadan oo kale inay noqdaan kuwa aad iyo aad looga faa'iideysto oo dadkan wax u tara waalidkii oo maaragtay ayagii laba jiha kala leh iyo caruurtii oo jiha kala leh ilmihii oo lagu qasbay leeyahay Soomaali baa tahay ilmuhu jir ahaan waa Soomaali laakiin ruux ahaan wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto ilaa waxay ku kala duwanaan karaan waxa weeyaan aabaha iyo hooyada sida ay caruurta ay ka dhigaan sida nabigeena kaleey salaatu wasalaam xadiisku ku yiri kullu mawludun yulad ala fitra qof walba oo la dhalo waxa lagu dhalaa diinta islaamka lagu dhalaa marka aabihiis iyo hooyadiis unba marba dhinaca rabaan ka dhigi karaan marka ilmaheeni waxa weeyaan iminka meelaha ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aad u cusub oo loo baahan yahay ilmaha in loo fiiriyo sidee ilmihii loola dhaqmaa maadaama aysan joogin wadankii Soomaaliya ay joogaan wadamadii ajnabiga ee banaanka ay ku dhasheen ilmihii waxa weeyaan laguma qasbi karo lama oran karo oo kaliya Soomaali baa tahay muslim baa tahay kaliya laguma qasbi karo waxay u baahan yihiin ilmihii in la tusiyo weygii iyo dariiqadii ay ku noqon lahaayeen ay ku qasban lahaayeen maartay ku qasban lahaayeen inay leeyihiin diin islaami aad bad ma santahay Cabdullaahi waad ma santahay ma laga yaabaa inuu nagu soo noqdo oo halkan barnaamijyo kale ka furo waxaynu jecelnahay hadda wuxuu aadi doonaa state kale oo nagu dhagan oo la yiraahdo Maine ayuu ku maqnaan doonaa maalinka Jimcaha iyo ku maqnaan doonaa dabadeeto wuxuu noo soo noqon doonaa wiiga kale ee ku xigay noo soo noqon doonaa sanadka 2014 maalinta bisha 4 ay tahay soo noqon doonaa marka waxaan jecelnahay in dadkii maaragtay classroom ka buuxsamay inay dib dambe maaragtay u qaadan karaan koorsadaasi maalinka Sabtiga Axadda iyo Axadda Isniinta ee bisha 4 iyo 5 ay tahay ayaan koorsadaasi maaragtay u fidin doonaa haddii taa ay dhamaateen insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay samarka intaan la gaarin ka horna in aynu u diyaarino mu'tamar kale oo aad iyo aad u weyn oo lagu hadlayo oo kaliya arrimaha xalka qoyska iyo caruurta iyo familka ka dhaxeeya aad baad ma santahay Okay, كون برنامجك. ما شاء الله excellent عاد بنقول ياقني وانا كفايدة سنة حد كبرت. حان كبرنا وح عاد ونكسن انت انا كسو كوبي كريم ادابت عروسه ادابت يسلا ولا نقم لها صلوا الله نقم ها صلوا نقم لها اماد عنقاقا aad u soo dhawaysan lahayd
aad u qaabili lahayd waxa asagu markaa wacdiga ah oo wato ee inay ahayn inaan xoog aad ku noqonin iyo maaragtay anaa warkayga maqal maaragtay haddii kale my way or no way oh no way or or the highway my way or highway okay sida maaragtay waalid badan baa waxay jiraan inay xoog iyo dil iyo wax ku maquuniyaan iyo qasa badan taana ma soconayso marka haddii uu teenager noqdo ama uu qaangaarba soo gaaro ama qof walbaba adigaba hadday ahaataba ama aragtay ka soo qaad adigaba markii uu qasab wax lagugu diro ma jeclaysanaysid adigoo xanaaqsan haddaa fulisidna baa fulinaysaa marka maasha allah tabaaraka waxyaalo badan oo naga maqnaa baa hadda noo bayaan sameey oo maaragtay si qurux badan aan u qaadanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa walaalkay Ismaaciil in ajar alla ka siiyo iyo xasanaad aan dhammaanin annanaan alla naga dhigo kuwii qaato ku dhaqma maasha allah tabaaraka shukran Listen, barnaamijkan parenting and parent coaching program seebadu aragtaa والله horta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxaa la yiraahdaa Xuseen Muuse magaalada Boos waxaan deganahay almost 16 sano barnaamijkan qoyska qaabilsan wallahi aad iyo aad ugu farxay sababtoo ah waxyaalo badan oo naga maqnaan ka faa'iidnay ma sha Allah familigan keenay oo dhan ee asxaabtooda maxaad ka baratay waxyaalo badan oo ka faa'iido jirto aanan garanayn sida loo laqmo carruurta xanaanada ilmaha inaan lagu qayrin yaa iyo waxyaalo fara badan walaa aan la soo koobi karin marka ma sha Allah aan leenahay macalinka macallin Ismaaciil uu ku maasan yahay barnaamijkan quruxda badan oo familiga waana maasantiin barnaamijkan ma ka faa'iidaysay aad iyo aad ugu faa'iidaystay ana kan oo kale ma soo baxay barnaamij aad iyo aad u fiican wax ilmo yar iyo ilmo waaweyn iyo qoyskii iyo wax walba waxaan adigu waxaad tidhi carruurtan ayayda u ahay baan doonayaa inaan uga faa'iideeyo iyo okay that's good all right aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay Ismaaciil nagu dara annagana good program. I really enjoyed it. Was it great? Learning tools, parenting that will help the future. adiga professorka ahaa ayaa baranaya parenting It shows that I need more to learn. sidaad u aragtaa barnaamijka aad buu fiican yahay boqolkiiba boqol aad baan ugu istiraxay maxaad ka faa'iidaysay aad iyo aad wax badan oo islaha waa saxan yihiin oo qaldan baan ay ka mid yihiin habkaan carruurtooda dhaqmo marka Mr. Micaad aad buu uga faa'iidaystay absolutely thank you very much you're welcome sidaad u aragtaa barnaamijka waa fiican yahay inaad aba ka helay horumar baa ka gaaray maxaad ka baratay waxaan ka bartay inaa duubaysaa inaad ها برنامجكن parentingka sidoo kula والله معلم ورفة برنامج كان برنامج آد وناكسن أنت نولا ميدان أركي ما هين ملينا إننا برنامج سيدنا إنا أركي أو نين صوماليا ديجا هي هدنا يعني هدنا ورجع أنت نولا بقول قف الصومالية كراس ما نفرسنا إنا وحن برنا عمق marka wallahi waxay ahayd ajaa'ib oo maartay wax igu horeeyay wax ajaa'ib oo markii ugu horeysay aan arkay maxaad ka faa'iidaysay wallahi wax badan aniga xaaskay waan isgarab fadhinay waxaan ka faa'iidaystay sidii mataqaan reerka loo wada dhaqdo sidii mataqaan carruurta loo karsado waxyaalo badan waxyaalo kuma maartay kuma tirin kara caaw هذا